jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Sacuudi Arabia ayaa si weyn u soo dhaweysay booqashada uu madaxweynaha dalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ku yimid dalka Sacuudi Arabia iyo maamuuska sare ee loo sameeyay madaxweynaha wafdigiisu. Haddaba jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Sacuudi Arabia oo ah jaaliyada ugu tirada badan marka loo eego jaaliyadaha kale Soomaaliya ee ku nool dalka Bariga Dhexe, iyadoo booqashadan uu hogaamiyaha sare ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ku yimid dalka Sacuudi Arabia ee jaaliyada u aragto in ay tahay mid diilo hor leh oo horseedaysa ilays bishaaro u xambaarsan mujtamaca Soomaaliyeed oo ku nool dalka Sacuudi Arabia iyo xoojinta xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Sacuudi Arabia. haddaba warbaahinta qaranka ee Soomaaliya ee ku sugan dalka Sacuudi Arabia oo la sheekaysatay qaar ka mid ah jaaliyadaasi ayaa waxa u muuqatay in dadkaasi ay farxad iyo xamaasad daraadeed u koobnaa hadalkooda, balse ay muujiyeen in madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu dadaal mugle ka wado danaha iyo maslaxada guud ummadda Soomaaliyeed oo ugu horeyso sidii uu madaxweynaha Soomaaliya uu amni buuxa ugu soo dabaali lahaa guud ahaan dalka Soomaaliya. haddaba jaaliyadaasi ayaa waxa xog warankooda ay ku وريهنا على كوس ويو SNTV دمانتين بقى ومحسنتين وأنا جو علي أحمد محمد وحن لا هاي وكما قدر أفوي مركب حن لا هاي مدحوين سوداو مرل وحن جعلنا هاي دلالة يو هولها عاد كوجد سوماليا هذا إسبدل عاد بلاوضي وحن لنا هاي سوداويننا وحن لنا هاي مدحوين إن شاء الله سوداو شو عن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جو دكتور سلول أحمد فارح oo ka tirsan jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Jidda kana mid ah sidoo kale ganacsatada magaalada waxaan Jidda ee dalka Sacuudi Arabia waxaan soo dhaweynaynaa imaashada ama booqashada uu soo booqday madaxweynaha qaranka Mudane Xasan Sheekh Maxamuud booqashada uu ku yimid dalka Sacuudi Arabia waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaan ku soo dhaweynaynaa si diiran ayaan u soo dhaweynaynaa annagoo ku faraxsan booqashada uu soo booqday dalka Sacuudiga haddaan jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Sacuudi Arabia madaxweynaha waxaan leenahay mudane soo dhawow waxaan ku faraxsanahay oo kugu garab taaganahay mudane madaxweyne dadaalka badan oo muujisay oo qabatay intii yareed oo dalka joogtay dadaalkaas oo ah sida amniga dalka sugidiisa aad xoog u saartay ayaan aad ugu faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay dadaalka dheeriga oo dalka ka qabatay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay mudane madaxweyne waa ku garab taaganahay waxaan kugu garab taaganahay hiil iyo hoo muddada gaaban oo joogtay wax qabadkaagii aad qabatay oo dalka iyo dadka u qabatay mudane madaxweyne haddaan nahay jaaliyada Sacuudiga ee ku nool mamlakada waxaan ku sheegaynaa in aan ku faraxsanahay booqashada Sacuudiga ku timid iyo xiriirka Sacuudiga iyo Soomaaliya in aad ka dhigto waxaan ka codsanaynaa inaad ka dhigtid mid aad u adag oo xiriir aad u wanaagsan ah waayo jaaliyad ballaaran oo aad u fara badan oo Soomaaliya ayaa ku nool dalka Sacuudi Arabia oo u baahan dalka ay ku nool yihiin in xiriirka dalkooda iyo dalkan ay noqdaan xiriir aad u wanaagsan mudane madaxweyne waxaan ka codsanaynaa sidii aan kaaga baranay in aad xiriirka adkaysid wax badanna ka qabatay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Sacuudiga garab heel iyo hoo ayaan kula garab taaganahay wax qabadka dalkeena amniga sugidiisa kobcinta dhaqaalaha dhinacyada macnaha waxbarashada kaabayaasha dhaqaalaha kuwa arrimaha bulshada sida aad wax uga qabanaysid inaad sii dardalgelisid ayaan ka codsanaynaa khayr badan Allah ku siiyo mudane madaxweyne waa dadaashay dadaalkaagana waa mid aan la soo koobi karinin. Ali Jaamac Cilmi على كوس راديو تلفزيون قرقة Soomaaliya Sacuudi Arabia.